ciidanka Soomaaliya la xoojiyo in ciidanka mataqaana ayaga la siiyo maxaa la opportunity aad u badan ani keen soo joogay waana arkay ciidanka Soomaaliya dhibaatooyinka haysta waxa kamid ah waxa loo diraa tabaro kala duwan qaar waxaa soo tabaraya Kenya qaar waxaa soo tabaraya Ethiopia Djibouti meelo kala duwan different waxay ku imaanayaan maxaa la curriculum isku ma jiraan hal meel laga soo tababarin marka waxaa muhiim ah in ciidanka hal meel laga soo tababaraa ama la isku keenaa waxa kaloo jiro dabcan waa ognahay waxa qabnaa hadda maamul goboleedo federaal ciidan bilahi maamulkiisu runta waxa weeye ciidanka ay leeyihiin maamul goboleeda dowladda ma hoos tagaan mise ma hoos tagaan reality waxa waaye ma hoos tagaan sabab kasta ahaato laakiin waxaa muhiim ah in ciidanka Soomaaliya ay hal meel laga xukumo hal meel laga maamulo ciidankeena waxaa la siiyaa $100 bishii mar way helaan mar ma helaan marka la dagaalamayo oo ay magaalo xiranayaan ciidanka dagaalamayo waxaa horkaca ciidanka Soomaaliyeed waxaa ka dambeeya kuwa amsom magaalada la xiray kuwa hor dhimanaya ama kuwa hor dhaawacmayo waxa waaye ciidanka Soomaaliyeed ما هلا وحي وباين جوا ما هلا وحي أي حق ولا هي أنا حق ما هلا صاروا كساها هاتو لكن ما هلا عينك ردي على ما وأم سما أنا أول ما دعيني لك سما لهاد كعم بين السير كمان نقطتين يقول لي نود داير لكن أنا حنا مسنا هاي إن أم سما إنه ولقيت تيجوا كم سمالي waxaan aaminsanahay in xilligii hadda la joogo ay ciidankeena ay la wareegi lahayd Soomaaliya laakiin si uu wareegaysaa waxa loo wareegi karaa am ciidanka ay mataqaana Soomaaliya ay xoog yeelan karaan markii la midoobo anaga markaa midoobo waxaan aaminsanahay hadda taala dowladda geli doona dowladda cusub ay ma doonto in xoog ay saarto sidii ciidankeena loo xoojin lahaa ciidankeena mataqaana wax loo qaban lahaa waxyaabaha kale oo ka hadlo waxaa ka mid ah oo aniga aad iyo aad u sheegaa xagga waa dib u heshiisiinta Soomaaliya waxaa aniga aan u soo joogay dib u heshiisiin fara badan qabtay 14 ayaa u maleynaa waxaa loo qabtay dibadda qaarkood waxaa loo qabtay waddanka gudihiisa لكن سؤال شو هو يا هشي dadkii loo baahnaa inay heshiyaan ama la rabo in la heshiisiyo anigu waxaan aaminsanahay inaan la heshiisiin see loo heshiin karaa waddan gudihiisa in lagu qabto shir dib u heshiisiin oo from grassroots ah oo laga soo bilaabo xaabad la isku yimaado waliba oo ahaada Soomaaliland ila Soomaali ay hogaamiso ayaa loo baahan yahay أنا وقت في سواليا أنا وحكيم محمد هقول استحمد ولا دتك مكايرين قبيل اسمه قرنين قف كدرس كا وكون حبيت الوادرك وابتك وإددا وعبرتها قف كان قبيل كسر لما كسر لكن راجل جنبه يعرف كيف يدعي وحين قلت إنه تجي نقدر قبيل وأنا قلت قفك تدرس وعلاها إلا يكون ديرو قفك قبيل كاس يقول شيء إلا ديرو حتى يعرف كيف يقول مالي وحلو باينة إن تدكي أي صلابتان إن سيدة سلا هن يسكت يعني إلا هذا تدكي لو صلابتان كله هذا لو باينة أنا وحنا مسنا هاي سوماليا النبض وحي إيمان الساعة أما يكلم الساعة مركي هوري إن تدك دبشين تاع الشيء لو سمعوا تدك إني حدلان إلا عفير تدك حلا كبوها تدك وحلا كبوها
أنا والله هذا يسوعن قف واحد ما you know you have to let it out from his chest إنه قف هذا كمان Rwanda iyo South Africa waxaa la sameeyay maxaa truth and reconciliation أنا ما ده qofka haduu qof wax ka sameeyo ha cafiyo qasab ma laakiin inta la isdhageysto in matalan loo hadlo waa in qofka kale wax sameeyay iyo kan wax laga sameeyay in dhageystaan loo baahan marka waxaan aaminsanahay Soomaaliya dawladda matalan hadda dhalan doonta دولين هذا إنه كبل هذا أيام مهمة أنت على سنة دولت بحيوان لو باين وحكم ده إنه أقامن كشتو حيوان ضروري جا ذاتك متخانة أي حكم حكم ده وعسوي شيء حكم ده ذاتك إنه سكول أي دين كان أنا مكان يدين وحكسو كني أو صار بيجني سكول عمارة فري سكول متخانة دوكسي هوسة دوكسي دحى دوكسي سنة خارج الجامعة يكفي سوق حين هذا العقل. ولا سمين كلا. أنا مسيح إلا سمين كلا. هذا الصومالي شكله هذا سمين أوبرافدا. برافد كيان إيه كروا. قف كسمة إيه كروا. إنك سرعة شوية بنت لكن قف كسمة إيه كروا. حكوا الحكام اللي عطينا Somalia وحال الشريك إن بروكي بتواتن أما 75% أيهين تغيرين ويلكي أنا كمان 1990 أم 91 ما أنت وتجرا لاتن شو ويلكاس أنا بقولس maybe ويلود ماركن دولد ماركن محلها كلام من ماركن متخانة هذا أنا أسمع إنه كلام ينبدي يسمع ماركن بيحكوا ليه الواجب تاعي إن الناس لو سمعوا لو أورو سكول لعنا نسيب شغل لو سمعوا هدينا شغل لو سمعوا أم سكول لو سمعوا وإحنا قرية منطقة شباب أبوه في سوماليا والخوائن لو سمعوا حتى وحياة كتير في سوماليا وأقول هاي الذي والد كود أيا أنت يقولوا هو قدام أبوه حيسمع قدام أيا واحد عايز تاريخ ما عنده يتو ويكون معنا نوبل بالكون قوتي لا أفهم بقول عنق أيا بده متى بدأ كون وين تكون قبل إلى من حريسة معه كان والمحل إني وحصل يعني opportunity أيوة أنا قاعد أنا أكمل هاي حتى عروتي اللي بدي أجرا أيجا وحي قيل مولا أما أي كوفي كرايا إنه يبدأ أذان إنه يصور الإنسان محلها وحصور هلان أما اشتغل هلان أما سكول هلان أيوة صباحيا لكن حواجب إن ودى الجودية سا وحصل له سنة كرو حقنا يقوليه هذا أنا وحنا مسنا هاي وعدتك ما أنت يبريتو ودك قدامنا شمال وحنا بيجي هذا التان وحاله هاي لو بعي كربجوج يقرح جوج يردي أيها هذا سكورتي فهذا وحكمتها ورنتها لكن وأنا مسنا هاي إلا صحيح وباين وبيلكي أما جودي حصل على السكول حصل على حمر أو صوماليا وجامعة المس جامعة سودا مسا إنه يشتغلوا أو يشتغلوا واي لكن بيلكي أما جودي كي تبدأ أي مثلا درسكوا هلا مثلا على الشغل هو واحد عمها كل ود صومالي وعمودي هي كل السنة شلنا هذا قدرت يوم حبيسنا الفيديو ويل ورس أو مثلا لا هذا بحلا ولا سنة أنا ما كهذا هذا لو واحد لا هو واحد جريء كده هاي سوماليا أنا وحنا عم سنة هاي opportunity بدنا أيجستا
laakiin waxay u baahan tahay Soomaaliya inay midoodo marka hore markaan safar ku jiro oo maxaa lahaayeen oo nabada waan maray cadaado waxa la kulmay madaxweynaha galmudug marka waxaa jiray gudub ka dhacay sanadgal maamulka galmudug iyo al-sunna jamaaca oo markaas waxay dhaheen waa maamulka gobolada dhexe waxaa u sheegay inay fiican tahay in ayaga ay heshiyaan waa ogtihiin Soomaaliya markii la isqabsado gaar ahaan maamulada markay isqabsadaan ama dawladda madaxda isqabsadaan waxaa la waa la tagaa Nairobi ama la tagaa Addis Ababa la tagaa ama la tagaa Kampala ama loo yimaada saa u heshiin why no heshiin why anaga u heshiin over 25 years right aqal waa leenahay waxaa soo baranay qof adiga kula mid ah inuu ku yimaado uu ku dhaw waxaan sameey waa laga fahmay anaga Kenya Ethiopia waa la wadan waa deesnahay Kenya Ethiopia la wadan dees anaha waay أنا ما كيسنا إيجان ما إيمان لكن وده هذا ما تخلنا وادر سماه لكن أنا وحنا مسنا إن حلقي للجوجو سوماليا أي أيضا تسمه سوماليا أي هدا كعنه سوماليا أي خمسة مهد إن هنوجد لو كان يليه ترى وحنا سوى إن سنة كان لعودي هنقف في لعب ودعين كان تعالى وحنا جينا لو كنا نتكلم إن الجاري دور و one person one vote إن قدرت شو كنت ياسف أنا حتى عيان دوران لكن هذا كان الجولاين هذا أنا وحنا مثلا إن أي تهلوك تجي حتى لو ترجلي إن ما تخلنا إن نقبته لو شذا هذا علينا المهم تهيأ مثلا waxaa kale oo aan soo arkay Soomaaliya anoo jooga laakiin baydhabo ahayd ana markaan meelaha tago oo aan magaalada tago bas ka wareega oo meelaha shaaka caba iyo dadka iska dhex fadhiista maana marka waxaan kusoo sawray meel shaaka cabay Facebook iyo waa aad u fiican waa social media ayaa soo geliyay sawirkii waana meesha ka cabayo ayaa waxay soo wacay wiil wuxuu yiri wuxuu joogaa Australia wuxuu dhahay safir waxaan ku dheeray aabay wax ku weydiinay adoo ii dhibay adoo wuxuu yiri adeer waxaa wadanka ka soo tago dhahay dadoo sano ka hor dadoo 2 sano ka hor wuxuu sawirka hadda meesha fadhiday ayaa wiilkayga soo dhahay guriga ka dambeeya waxa dhaw gurigayga waa هذا الحكاية أصلاً ما دام أجيت بعده وأحد أمامه كان له شيء كتاب كوريجا وحنا بقينا ليسوعي ليسوعي وعنبير وأول شيء يا بلاد أول شيء يا طبعا أول شيء مدحينا أمامه كائن ربك البيت سليم حسن أول شيء وأسكو هري على كل عاد ممكن لا ينوع لي يكلموه لكن وأسكو waxaan ka wadaa dadkii odagaas oo kale ayaa ka buuxa oo wadankii wax badan ka maqnaa gurigooda maybe iskaga tagay maybe xoog loogu haysto maybe mataqaanaa ayaga waa u soo laaban laakiin qof gurigiisa in la siiyo ama uu soo cesho waa muhiim waa anoo markaan tagay koogaan tagay Kismaayo markaan jooga 2 maalmood ayaa waxaa aadnay magaalada banaankeeda meel dooxa oo qurux badan aniga odayaal saacni iyo wiilaa saxabanahay oo ku jira dawladda waxaa maamulka Jubbaland markaas waxaan fadhiisanay meel banaan oo cagaar ah meesha ku sheekaysanay iska fadhiisanay waxaa soo maray marka wiil yar oo ari wata oo ilaalinaya markaasaa nin la socday wuxuu yidhi ambassador bal aan isku sawirno arigaan meesha maray
marka u tagnay yarkii ala hadalay wiilkeena wuxuu dhahay bas fadha soo sawir arigi aadna istaagna saas soo sawir arigi wala si carra box abada carra oday wuxuu wiilkii uu duuxay adeer maxaa dhaca ariga lagu carra adeer markaa u tagsi uu ku joogay wuxuu barfuumkii lagu carraya markale waxaan ka baxay reeb waa maqasheen waxaan ka baxay garowe gaara waxay siiyeen madaxweynaha maxalla Puntland Cabdi Algaas aniga drawlahen iyo wiil kale marka ilaa iyo waxaan ku soconay qabla iyo basaas dhaxmaka marinay ayaa wadada iskeeda waxaa wax ku cunayay mataqaanaa xoolo ari iyo geel marka gaariga markuu xoog u socdo geel waa galaysaa wuu soo ordaa oo laami ku soo ordaa wiilkii waxaan dhahay waa hog yeeris ma adeer wuxuu yeriyo wax kala sameeya meesha marka u soo dhawaanay nisu soo furay gacantu taagan taasuu yeri geel wuu istaagay waan dhaafnay geeli wuu iska socday meesha soo laba jeer markuu soo biyey waxaan ku dhahay adeer aniga balaa gacan taago wuu qoslay xogaa soconay geela aragna marka kasaa diistaa furaa gacanta taago geeli wuu soo socday waxaan dhahay adeer maxaa dhacay wuxuu boodi adeer xal baa tahay waxyaabaha ku soo arkay oo cajiibka ah Soomaaliya ayay ka mid tahay insha Allah bug baa qoran doona bug mataqaana waa soo sheegi doonaa waxaan soo arkay waddan qurux badan dadka ku yidhi meelihi aan soo maray tuulooyin xal ka saariyay oo mataqaanaa dad yar degan yihiin laakiin dhulka aad u weyn yahay waxaan kale oo aan idiin sheegaa insha Allah qoraan kasoo baxay xamar oo aan u socday farc waxaan arkay ayadana waddada geeskeeda ayaa waxaan arkay dhiilo oo ay calan ku jiraan oo la dhigayo mataqaanaa waddada geeskeeda qofkii wadana wuu iska laabanayo darawalkaa weydiiyey waxaan dhahay ilaah maxay waa u tagnay ilaha tagay ilaha marka dhiisha waxaa ku jira caano laakiin geeska ayaa waxaa kaga xiran yihiin baca kaga xiran bacada waxaa ku jiro bariis yar waxaa ku jiro sukor yar waxaa ku jiray maraan ku arkay baasto la jibiyaa ku jirto wiilkii darawalkaa weydiiyey waxaan dhahay waxaan maxay wuxuu yidhi ilaa iyo waa mar hore meesha marka la dhigo caanaha uu qaado maxaa dhahaa baabuurka maxaa dhigi sisteemonocto iyo hadda waxaa la keenaa maxaa dhahaa baabuurti oo xamuulka markay qaadaan caanaha waxaa la geenayaa meel lagu ogyahay oo suuqa xamar ninkii caanaha gatay wuxuu furayaa bacda wuxuu ogaanayaa in qofkaas u baahan yahay waxaas وسمعتك عن وين مغل ربنا أنا شكون وياي أنت الربع كيلو يا ماما عم أنت العبد وحيري بعده وحيري روح حسابتها هاي وشلون جين مركز وحكسو شو بيا نص كيلو أما كيلو بريس أما باستو أما حلا يعني سكر أيوك سوريا ولا سويني يا حلا إيش فهو واحد جيبه أنا أقول له مغل مركز راح سوي جرواي حيلها سؤال كي ورشق آد وقرح بدن مثلا أنا تجي الدنيا هتجلس ونوع في المشى بعجيب إيه ما أنت هتجري دور لحس على رأس عيد جنبه هدول الراعي هدول الراعي اسمه مركبة يصعد بمحلها أفتح نشعك بعد ماذا حتى لما تجي كلون أو سمع الله يعني يصعد بي ماشي هكوني it was amazing today مثلا يبغوا على ماشي ياكلوا يبغوا لكن ده كان هو كده هي. أوكي.